Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ay bilowdo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Israa'iil, kaasoo ay maxkamadda geysay dowladda South Africa. Koonfur Afrika ayaa ku eedeysay Israa'iil in ay Gaza ka geysatay dambiyo dagaal oo ka dhan ah Falastiiniin ku nool Gaza, isla markaana ay jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee xasuuqa ee sanadkii 1948. South Africa ayaa sidoo kale ugu baaqday garsoorayaasha in ay Israa'iil ku amraan in ay si degdeg ah u joojiso howlgallada militari ee Gaza. Dhammaan eedaha ay South Africa u jeedisay ayaa waxaa beenisay Israa'iil, iyadoo sheegtay in ay koox qareeno ah oo iyada matalayo ay u diri doonto xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada Hague ee dalka Holland. Afhayeenka dowladda Israa'iil Eylon Levy ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay maanta ka soo hor muuqan doonto maxkamadda caalamiga ee cadaaladda si ay isaga difaacdo buu yiri aflagaado dhiig leh oo uga timid dhanka South Africa. Dacwadan oo la filayo in ay qaadato muddo sanado ah ayaa qaybteeda hore socon doonta maanta iyo bari, waxaana lagu furi doonaa dhageysiga eedaha ay soo jeedisay South Africa. Brazil iyo Colombia ayaa goor dambe oo Arbacadii shalay taageeray kiiska dacwadda ka dhanka ah Israa'iil.